fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. habeen wanaagsan saaxiibayaal, assalaamu calaykum. caawa meel walba adduunka ka joogtaan waxaanu caawayeynaa wararkii ugu weynaa caawa ciyaaraha. waxaanu soo qaadan doonaa kulamadii maanta iyo caawa dhacaya horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub oo ku jiro Premier League, La Liga, wax badan baa dhacayo caawa. Arsenal waa lagu kala badiyay oo waa laga quustay. City caawa Manchester City caawa ku kala baxeen Arsenal oo marada la gariday. Arsenal ku inkaar waa ma duceysna goormay ficud iska celinayeen ya faca ka har inkaar waa faca ka har habar waa la yiri habar xaliim waxay dhihi jirtay wariya maxaa kugu dhacay warmad markay habartay guwaabinaysa wiilku waa micnaa marka waxay dhihi jirtay wariya maxaa kugu dhacay war maadan iska celin karin faca wariyahe faca ka har waa habaare ay habartu dhihi jirtay. marka Arsenal waa afcid waa ka hartay وكاي هذا والله قراعي عاوة نمنكو دالن نمنكو حناقسن او بريها مدحا حنوناي او يقفورتا كوكا عسانتهاي با عاوة مدحا كو دجستي ها مان سيتي مدحا كو دجستي عاوة مانشستر سيتي سدح جول يا جول بيجيان كوحدا كو بدا عقتا ارسنال كون اغويرو سيرجيو كون اغويرو وشندله شان لو مشاغا adoo dhanba ku saarsanaya caawa nimanka Arsenal isaga meel saaray caawo saddexda goolba waa midka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadba isaga ku fardhiyay caawa marka Liverpool caawa gambarka ku qasaaray Liverpool caawa waxay islahaayeen waxoogaa xataa Arsenal walaayada saarta islahaayeen macnaha Arsenal walaayada saarta caawa macnaha caawa idin badisay Arsenal oo yaani Man City halid ka celiyay lahaayeen marka Man City Arsenal waa soo dhaaftay marka waxa weeyaan Liverpool ay jiwal ku sugaya marka habeen dambe aduu jiwal ku sugaya habeen dambe waliba City hadda wax u cayaan Zabaleta wuxuu cayaar West Ham habeen dambe ciyaarayaan moogtahay Liverpool iyo West Ham habeen dambe ciyaarayaan marka Man City waxay wacanayaan bari caawa dhahl waa Atletico la waca Zabaleta waa moogtahay Zabaleta waa nin legend ah oo soo ciyaari jiray Man City oo Real la qaaday kaay wacayaan West Ham ku tirsan waxay dhahayaan واريا زباليتا هرهم باب هي نيهو ادغو سوماد waxay nin kooxdan wax badan u qabtay oo legend ka ah tasmay weydiinay aniga wiilkiiniyaan ahay aniga odaygiiniyaan ahay war ma nimanka naga qabatay marka habeen dambe waxay leeyihiin war nimanka naga qabta Liverpool laga qabta war maadan arkin Rafa Benitez macna hor Liverpool aha habeen wad anagu naga qabtay waa naga badi Liverpool u dadaalayay maad aragtay Roy Hodgson macna Crystal Palace ee maalmood ma garaacay tababari hor Liverpool aha marka Liverpool way iska halmeynayaan garab bay siinayaan ciyaartoygoodii hore iyo tababariyaashoodii hore way la shaqeynayaan marka wareedna la shaqeysan rabnaa marka habeen dambe malaha ninka la yiraahdo Zabaleta ciyaartooyga West Ham iyaga iska wax kale oo qatar badan waxa laga yaabaa inuu ku guwaabiyo in la garaaco nimanka la yiraahdo Liverpool marka City caawooshida adoo waa qabsatay hayraali noqdo City marka caawa hawsheedu way qabsatay oo marka habeen dambe waa kaayay nimanka bal suga isniin marka lagu geeyo wax baa dhici kara ya habeenku marka laga saar habeenada dadka qaar ee ciyaara marka laga saar oo habeen isniin lagu geeyo wax baa dhici kara marka habeen dambe hadii nimankan la geeyo habeen isniin marka la geeyba wax leeyamay jiraan nin isniin la geeyay ya oo West Ham kooxda tahay waxba dhici kara hata waa la iska hoos bixin kara qoota macquul ah hadda waa kan caawa City kuwa kan way meel bay saareen oo saddexda gool iyo gool bay ku fardhiyeen ka hore waxa dhaliyay kuna weerow daqiiqadii ugu horeysay ciyaartuba gool bay ku bilaabeen nimanka Arsenal yiraahdo Yahoo bay yiraahdeen hay Yahoo ma jirteen waa lagu bilaabay hoodii loo dhihinba ama shaqo gool lagu shubay kadib sayo Konshali ayaa daqiiqadii 11 ciyaartu ka dhigay gool iyo gool markuu gool madaxa ku dhaliyo balse Aguero ayaa daqiiqadii 44 qaybta kuwada oo dhamaanaysa laad qurux badan oo la isku baasbaasay Sterling u baasay Gundogan u soo qaaday Sterling u baasay Aguero dhaliyay ayaa loogu labeeyay Arsenal oo maxay Man City u yihiin odayaasha kamal daariga Premier League oo maxay u yihiin ilmihii Bidarlab Guardiola ilmihiis maxay u yihiin hadayna maqaarka saas u garaacayn marka goolka markii laga dhalayna laba gool bay ciyaartu noqotay gool qaybta la markaa soo noqdana daqiiqadii 61 Manchester City waxay dhalisay goolkeedii saddexaad ciyaartu Aguero ayaana goolka ciyaartu dhaliyo saddex gool caawa gaaray hat-trick buuna gaaray kun Aguero marka caawa nimanka kanu sida baa meel loo saaray dhan kalena galabtu Manchester United hal gool ibar bay ku garaaceen Leicester City oo goolkuna waxa dhaliyay daayirka lagu magacaabo Marcus Rashford haddaan been la sheegayn baryahan Manchester United waxay noqotay wax kale ciidamadu waxba aysan garab ku saarnaanin Manchester Barrier Bruketi يعني كويس قلب ay ahayd laakiin bariyahan warkood waa weynaaday wallahi warkood waa weynaaday war ma ciyaari waa badisay ba socota still waa beaten marka nimankan kabtooda waa weynaatay
kabtooda maalmihii hore waxay ahaan jirtay lambar 5 lay ahaan jirtay oo galab ay ahaayeen ma ogtahay hadda 15 ay noqotay kabtooda waa weynaatay dacaska lambar 15 bay hadda ka qaataan waa qatar nimanka baryaano marka galabtu Rashford gool ku dhibay Leicester kaga adkaadeen oo Man United iyagoo sidaa bay ku adkaadeen oo cid waa kacsan yihiin dhanka kalena La Liga waxaan arkayay Real Betis oo garaacaysa Atletico Madrid oo marka caawa Barcelona howl baa loo qabtay oo Barcelona taageerayaashu aad u faraxsan yihiin yes bay leeyihiin oo aad u faraxsan yihiin oo Atletico Madrid yaa laga badiyay caawa oo Real Betis baa ka adkaatay oo xalay Barcelona maadaama Barcelona la galiyay hadii Atletico caawa badin lahayd waxba yahan lahayd laakiin Atletico yaa la garaacay marka Barcelona caawa howl fiican baa loo qabtay oo hadda maxaynu ka baranaynaa wixii caawa meesha ta ka dhacay horta nimankan Arsenal la yiraahdo markay Man City la ciyaarayaan ما عمامنا هرت واقع فيري مان سيتي عاو هدا waxay timaaday 6 iyo 1 dhibcood يعني ليفربول baa 6 iyo 1 dhibcood haysato Man City waxay hadda haysataa 59 dhibcood oo Man City waxay ku soo noqotay booskeeda labaad ee horyaalka Premier League way ku soo noqdeen oo marka waa la is hayaa wali horyaalka Liverpool 6 iyo 1 dhibcood Man City 59 dhibcood bay hadda joogan marka City waa neefsanayeen caawo bay leeyihiin kulan kadib waxay la ciyaari doonaan Chelsea markay Everton arbacadu la ciyaaraan marka waa kan Arsenal Man City markay la ciyaarayaan Arsenal Man City markii ugu dambeysay Arsenal 4 jeer xiriir ay garaacaan waxa ugu dambeysay 1930 kii bay ahayd yani hadda Arsenal 4 ciyaarood la soo dhaafay Man City la ciyaaraysa Arsenal baa la garaacay marka bariyaan Arsenal Man City iska celi kartaba waliba City ayaa 14 gool iyo 2 ka dhalisay tani xagaagii hore kooxda Arsenal iska saariyay yahoo 14 gool lana ha Arsenal 14 gool ayaa laga dhali ka war tani xagaagii hore in 2 gool bisay dhaliyeen marka 14 iyo 2 Arsenal tani xagaagii hore 14 gool ayaa laga dhali ka war Man City ka dhalisay Man City wax weeyaan ayagu dhalin lagu ma gaarayo waliba ninka la yiraahdo caawa ninka la yiraahdo Arsenal ma dhicin ku soo adkaadaan garoon kale يعني Arsenal soo waa koox waaweyn markay gurigooda kula soo ciyaareen Arsenal ma dhacdin ku soo badiyaan يعني كوحة وين يلا يرهذا كوحة وين مركي أرسنال جرود كل صو عيارين يعني عاود أرسنال وحش جبت كرونكا سيتي ما دام أرسنال مركي بنانك أي أدو أو كوحة وين جرود كل صو عيارين أرسنال ما ينوقت كان تاني لما كنت مشنتي كوحة وين يلا يرهذا سيد جلسي وكله أرسنال مان سيتي وكله ليفربول وكله يونايتد وكله توتنهام مركي تاني لما كنت مشنتي أرسنال أنت يبعد كمان يسوقت كان جرود كوحة وين كمان يسوقت كان مركي الدنيا wax badan baa ka dhacay adduunyada intay Arsenal ku soo adkaan laadahay guriga koox weyn adduunyadu wax badan baa ka dhacay adduunyadu Wenger oo muddo Arsenal maamulayay baa xilka laga qaaday oo la casilay Leicester City baa horyaal qaaday oo koox yar ahayd Premier League ku guuleysatay intaas dhan waxay dhacayaan Arsenal maynu ku adkaan banaanka Usain Bolt wata qani ninka dheereeya ayaa ciyaaru ka fariistay orodka noqday ciyaartoy haddana ka sii fariistayba intaas waxa dhacayaan Arsenal maynu ku adkaan garoonka koox weyn gurigeeda kuma soo adkaan waliba Donald Trump ayaa madaxweyne u noqday Mareykanka maalmo badan ba adduunka la wada cabsanay oo la laha argeedka ama nagu soo gamaa ninkan master ku gamaa la yiraahdo ma ogtahay Trump ilaahay amr si waa ninkaas oo kabtiisa waxa waa ma la gashan karo waxa waa reero waxa waa ganle waa geedka micnaa maalmo badan inta Donald Trump la doortay Donald Trump bari waxa laga cabsanay arma soo gamir biya geedka ma ogtahay asaga waxa la master ku gamaa laha ya gan aslee geedka arba Donald wadan halkaas waxa laga leeyahay rakiba gama master ku gama xataa ya wala doortay inta oo dhadu ka dhacayaan waxa Arsenal wadkaan xitaa Faransiiska ayaa ku doon qaaday waxa dhan dhacaya Arsenal maynu ku adkaan garoonka koox weyn marka caawana waa ka laga qubaystay oo meel la saaray Pep Guardiola ayaana 4 ciyaar isku xiga Arsenal garaacaya waana markii ugu horeysay oo Arsenal kala kulmayso 4 guul daro xiriir Man City tan iyo 1907 baa ugu dambeysay in 4 ciyaar isku xiga la garaaco nimanka Arsenal yiraahdo waliba nimanka yiraahdo Arsenal ayaa isku guul dareystay hal shoot inay sameeyaan xataa qaybta labaad caawa ciyaarta Aguero hadriga caawa wuxuu ka dhigan yahay waa hadrigiisii 10aad uu ka dhalanayo ciyaaraha Premier League uu ugu dhalanayo Manchester City kaliya hal nin baa tartankan kaga hadrig badan waana Alan Shearer oo dhaliyay 11 hadrig marka Shearer baa kaga hadrig badan horyaalka ninka yiraahdo Aguero marka kun Aguero xataa caawa Sterling baa isagu wuxuu jira hadda 24 sano ka tiro maalmood Raheem Sterling wuxuu noqday daayirkii 7 taariikhda Premier League ee 100 gool ku lug yeesha hadda Sterling oo galab mooyaane laakiin sidoo kale uu qatar badan yahay 100 gool ayuu Sterling siiyay ka waran Premier League ku lug leeyahay oo 40 gool waa caawiyay 9 goolna waa dhaliyay marka Sterling 100 gool ayuu ku lug leeyahay Premier League caawri korka uu gaarayo waa daayirkii 7 oo sida ka sameeya marka caawa Aguero labada gool ugu dhaqsiyaha badan Premier League xilli ciyaareedka Man City uu dhaliyay isaga baa dhaliyo Newcastle 4 gool kaga dhaliyay caawana Arsenal 4 gool kaga dhaliyo
marka waxa weeyaan una Emery ilaa hadda waa ka bedelahay Guardiola caaw guuldarada Emery soo gaartay waxay ahayd tii sideedaad ee Guardiola ka soo gaartay 12 ciyaarood ee Guardiola iyo Emery ay kulmeen 12daas ciyaarood Guardiola ayaa badi stager afar bareejo marna ma u adkaan ninka kan oo yiraahdo Unai Emery marka Guardiola baa markasta adkaada marka caawa City waa ku wax kaleysay Arsenal oo Arsenal hadda waa ku guul dareysanaysaa 22 ciyaarood la soo dhaaf Premier League ay banaan kula soo ciyaarayaan kooxaha waaweyn marka yani 22 ciyaar la soo dhaafay kooxaha waaweyn guriga kula soo ciyaarayaan ilaa hadda Arsenal waa ku soo adkaan laayiin marka marada ka dhacday maroo ma cishna marka caawa City kuwa kan waa ku wax kaleeyeen oo caawa meel bay saareen haddaba marka City waa shaqaysatay oo shaqada waa cabtay waxay leeyihiin Chelsea diyaar baan ku nahay inkastoo Everton ay la ciyaari doonaan arbacada marka Liverpool ay caawa gabarku way ku khasaaray bal habeen dama gabar la dhigan doona marka niba markiisa loo dhiganayo caawa Liverpool waxay leeyihiin naga dhaaf yaa Arsenal yaa taageeri jiray waxaan yaa walaad ma la saara karaya qayli ciilahayo macnaha Arsenal waa laga faktay waa la garaacay marka waa kare caawa ciyaarihii kuwa ka ugu weynaayo Atletico lagu dhagay caawa laga badiyay Manchester wali waa duulaysaa halka Manchester ay caawa ku wax kaleeyeen Arsenal marada laga riday Arsenal ma duceysna kooxdan u duceeya xoola u qala حول يالو وقال أرسنال ما دعيسنا فعكار إنكار أرسنال شقة مربته وكوح كفتروا يا قاي وحن قادنا الإسكالية معينة أرسنال ما سودوه أو وحقات كده ما سوف الضبع إنك استودانيس وعاو عيار كلك قوري أرسنال سيتي صدح أرسنال جول نبت قاليو